السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي سو دوادا aad ayaan idin salaamayaa asxaabta cusub asxaabtii hore ila joogtay aad ayaa u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin jazaakallahu jazaa khayr asxaabta cusub sidoo kale ku soo dhawaada channelka qurxinta iyo arrimaha bulshada markasta waxaan jeclahay waxyaalaha arrimaha bulshada ku saabsan inaan ka hadlo arrimo badan aan ku falanqeeyo laakiin maanta waxa la iga codsaday inaan ka soo hadlo nolosha Malaysia intii aan ka ogahay inaan wax ka sheego sida guryaha kiradooda iyo inaan ka hadlo nolosha biilka la biilanayo inaan ka hadlo haddii Ilaahay idmo guryaha kiradooda waxay u dhaxaysaa lacag gaaraysa $400 ilaa $500 walow ajaanibka hadda la iska nacay oo hadda tiraahdo ajaanibaaba ahayba Soomaali baan horta warkiisa badamaba laga kireynayo laakiin adigu hadiiba la helaba $500 ilaa $400 bay u dhaxaysaa guryaha 4 qolihi adu $500 kama yara guryaha 3 qolihi waa iska $400 intaas $500 ilaa $400 ay u dhaxaysaa guriga xitaa waxa jira 3 qol oo ka qaalisan $400 ka qaalisan nolosha biilka qof walba isku maareeyo horta ku xiran tahay hadaa ilma haysatid waxa waaye waxyaalo laga maarmaanaha jira sida fruudka kale waa qaali meeshaan markaad ilma haysatid oo fruudka aad ka maarmin ilmihii aad rabtid markasta ina fruud u gadid aniga 4 qof aan nahay bishii $500 baan ugu baxdaa ilaa ilmihii waxaa rabtaa markay iskuulkii aadayaan inaa sharaab gadid cabitaan gadid waxyaalo badan adigu $500 lacag gaaraysa adigu 2,000 ringi kama yara yani sidaan aniga aan kulliba aniga ahaan aan markaa naftayda aan ka hadlo gurigeyga ka hadlo waxa ku dheeriyo korontadii internetkii biyihii waxa soo dhan waxbarashadu waa goonideeda waa 2 option waxbarashadu mid waa mid qaxootiga dadka qaxootiga ku jira ay galaan oo cunuga markuu 9aad marayo baa ugu dambaysa iskuul ka koreeya ma helayo qofku markuu safiisa haysan 9aad ugu ogyahay shahaado fiican oo yani muctarifana ma helaysid markaadan cunugaagu uu safiisa ku dhiganayn fiisa markuu ku dhiganayo waxbarashada cunugu markuu fiisa ku dhiganayo sanadkii waa $5,000 aad ay qaali u tahay waxbarashada oo fiisada lagu dhiganayo aad bay u qaalisan tahay markay qaxootiga tahay adigu $200 ilaa $150 meelahaas waaye adigu labadii cunug $150 waaye meelahaas markay qaxootiga dhiganaysid ay ku dheeri tahay inaad tuushin cunugaaga guriga ugu qabatid oo tuushin heshid quraanki gooni ku yahay adiga markii 2 cunug aan ka hadlo maca tuushin maca quraan lacagta iiga baxdaa $300-400 iskuulka dugsiga quraanka tuushinka $400 lacag ay iga baxda guriga maxaan ku iri $500 ilaa $400 oo dhaxeeya oo korontadii biyihii iyo gooni ku yihiin biilkii $500 halka 1,000 ma ku haysatid adi 1,500 kama yaraanaysa biilka Malaysia lagu biilanayo 1,500 oo aan dhar iyo shopping iyo waxa ay ku dheeriyihiin nolosha Malaysia aad ay qaali u tahay qofkii arkay baa ka sheekayn kara ama jooga qaxootiga sidoo kale dadka qaxootiga ku jira iskuulaadka halka kuwaan aad ka bixinaysid $5,000 horta ayagu way ka raqiisan yihiin oo bishii waxa laga yaabaa cunugii inaad $75 aad bixisid labadii cunug aad $150 aad bixisa
quraankii waa gooni tuushinkii waa gooni marka gabadha iga soo codsadeen waxay yiraahdeen nolosha Maleeshiya ka soo waran marka nolosha Maleeshiya inta anigu aan ka aqaano kula aan waqti aad u dhir badan ma joogin hadda 4 sano sanadka shanaad ay socda waxbarashadana labada step waaye arrimaha qaxootigana si fiican uma aqaano wala iga aqoon badan yahay qaxootiga hadda waxa inta qof inta hor istaago ay appointment soo siinayaan oo ay qaabilayaan ma jirto sidii corona u dhacay dadka waxba ma qaabilaan online iska soo buuxiyaa la yiraahdaa online ka marka iska soo buuxisid intaasoo sana iska joogaysa aan lagu la hadlaynin marka arrimaha qaxootigana saas waaye gabar yar ay tiraha habar yar ka soo hadal guriyaha kiradooda iyo nolosha Maleeshiya waa meel horta aad u kulul mar waxadaas inay ka korshidan tahay ama kayf ka korshidan yahay maahana meel qabow ma ahan kaliya marka waddanka ka soo tagtay oo dacolaadi ka jirtay oo nabad un baa haysataa waana waddan islaameed waxa la dalaada lahayn waa dareen ku joog $100 maanta hadaa suuqa la aadid Maleeshiya wax qiimo leh oo aad isleeda waxaas ka soo bixisa adoo ka soo bixin ayuu ka soo dhamaanaya waa adigoo $50 maanta hadaad bukaara la gashid waxba kala imaanaysa waxay ka la qiimo tahay $20 $100 oo Maleeshiya waxaan ku qiimiyaa ay la qiimo tahay $20 adoo bukaara la galay oo adeeg ku doontay aniga xilliga aan xamar jooga markaan fiiriyo $100 oo Maleeshiya iyo $20 oo xilligaas aan suuqa la galo wixii aan ku soo gadan lahaa ka yaraan ku soo gadaya u maleynaya hadaa adeeg iraahdo waa ku doonaya qudaar iyo hilib aan ku doonaya lacagtu qiimo ma leh meeshaan $100 wax qiimo ma leh marka nolosheeda kalena waa iska on kiradii iyo wixii ifirtingi waa lacag on adigu $1500 qoyska yar waliba qoyska weyn aan ahayn bishii waa ka baxaysa waxbarasho hadda ilmo wax ku baranayaan aad ilmo wax baraysid ilmo wax ku baranayaan aad quraan baraysid diini iyo maadi intaba aad baraysid kiradii guriga kulli $1500 kama yara marka intaasaan rabaa inaan yani ugu sheego gabdhihii iga soo codsaday inaan xaaladda Maleeshiya uga sheekeeyo arrimaha qaxootigana intaasaan ka ogahay tan guriga kiradiisa iyo biilkana intaasaan kula hadda aniga inta aan bixiyo aan ku sheegay marka dhammaan asxaabtana aad idin salaamaya aadaan u mahadsantihiin asxaabta cusub iyo asxaabtii hore ila joogtaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh